hadda ayay kala cadaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ninkii uu iska tuuray ninka mowqifkiisu waa cad yahay wuxuuna taageersan yahay mashruuca uu la yimid ra'iisul wasaarihiisa Netanyahu wuxuuna hadda ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed ee waqooyi inay baasaboor qaataan si dalkiisa uu soo dhaweeyo ama ay ugu soo dhaweeyaan East Africa qaasatan dariskeena Ethiopia dad badan ayaa taga dalkaas waxayna u isticmaalaan si military ahaan diintoodana way qaataan mashruuc cusub ay waxay rabaan inay ka bilaabaan Soomaaliya dhexdeeda wariyaal oo ka yimid Israa'iil ayaa la celiyay EVs ayaa celisay oo dalalkii diyaaradahooda way diideen inay qaadaan waxay ku dhaheen EVs ayaa lagu galaa Soomaaliya dhulka u socotiin waa Soomaaliya marka ninkan mashruuciisu waa cad yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenkana ninkan asxaab ay ahaayeen wax yani iska imaanaya ma jirto marka ra'iisul wasaare ku-xigeenka mowqifkiisa ah midnimada kama ahan run